salaan kadib waxaan shirkan jiraa'id u qabtay baadin laga maqan gabadh la yiraahdo Ikraam Tahliil Faarax ayaa raq iyo ruux aanan nolol ku haynin waxaana uu wardabeysay 26 bishii Juun hadda aad garanaysiin 26 maanta waxa bishii 16 waaye ilaa 22 maalmood ayay sidaa ku maqan tahay oo aan raqdeeda iyo ruuxdeeda midna aan la haynin hay'adaha amniga mar hore aan wargelinay way baaritaan ay wadaan cid allaale iyo ciddii ummadda Soomaaliyeed ka tirsan iyo ciddii muxuu ahay gacan ka geysan kartana waan ku soo dhaweynaynaa inay gacan nagala geysato baaritaankaas ayada waxaan codsanayaa gabadha waa maqan tahay Ikraam Tahliil Faarax Axmed la yiraahdaa Ikraam waxay u shaqeynaysaa hay'adaha dawliga hay'ad ka mid ah kuwa kalena way u soo shaqeysay oo gobolka Banaadir ugu horeeyo gabar waxay ahayd aqoon-yahanada gabar waxay ahayd hadda mar dhow jaamacad ka soo dhameysay Ingiriisiga aqoon-yahan ayay ahayd ilaa iyo hadda anaga maanta qof aan ku eedeyn karno oo dhihi karna cidaas aad dulmigaas u geysatay dhibanahaas gabadha dhibanada raqi ruux aan lagu haynin cidaan dhihi karna ma jirto waxaan ka codsanaynaa hay'adaha amniga saddexda hay'adood amniga waa la wadaagnay madaxweynahana amar uu bixiyay oo isku leeyahay raqi ruux gabadha lagu soo sheego ra'iisul wasaaraha sidoo kale BCO ku yahay arintaas ayada muxuu ahay hay'adda ay ka tirsaneed sidoo kale raadinteeda ilaa iyo xataa meelo aan muxuu ahay hay'adaha oo kale caalami ah xataa waa la kaashanay arintaas ayada waa raadinteeda wali way socotaa waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed cid allaali ciddii information hayso inayna la soo wadaagto qaasatan anigoo ah adeerkeed xildhibaankeedana ah inay ila soo wadaagaan telefoonkeyga aan wato liiga heli karo waxa weeye furu 8 32 37 8 waa 32 waxaan leeyahay furu 8 32 37 8 marka waxaan jeclahay shaashadana waa idinku soo qori doonaa ciddii information haysa inayna la soo wadaagto ayaan jeclaan lahaa waxaan rabaa waan doonayaa inaan ka hadlo gabadha baadadeeda aad bay noo xanuujinaysaa waalidkeeda ay xanuujinaysaa annagayna xanuujinaysaa ahalkeeda xanuujinaysaa dadka Soomaaliyeed waxaan aragnaa baraha bulshada dad Soomaaliyeed oo muxuu ahay baraha bulshada information oo aan xaqiiqda loo haynin soo gelinayo eedeynayo dad muxuu ahay waa jecelnahay in Ikraam dad lagu eedeeyo la helo laakiin haddana warkii markii aad baartay war aad baaritaan ku soo saari karta ma waa la lahay ma soconayso waxaan ka codsanaynaa inay nala wadaagaan oo ay warka la soo gelinayo intaana baraha bulshada soo gelin ka hor telefoonka hadda aan sheegay iyo qofkii ii yaqaano waa lii yaqaan inay anay ila soo wadaagaan marka kadib ayaan rabnaa inaan baadi goobkaas asaga aan ku salayno informationkaas asaga runtiina ma caawinayso baraha bulshada war la soo geliyay baraha bulshada war la soo geliyay caawimaad male mana caawinayso waxaan ka codsanaynaa dadka informationada baraha bulshada ku soo qoraayo si toos ah inay ila soo wadaagaan oo adeerkeedaan nahay aniga xataa haddii wax la qarinayo ay jiraan anaa idin qarinayo anaa idin la wadaagayo laakiin baadidii sidii aan ku heli lahay waxay danta ugu jirtaa intaana baraha bulshada gelinin war bulsho qof war la geliyay war la raadin rabo ma war soo afjar ma waa marka dadka Soomaaliyeed ama aqoon-yahaniinta ama siyaasiyiinta ka hadlay waxaan rabnaa inay ila soo wadaagaan wixii information oo ay hayaan oo dheer ah waxa baraha bulshada ku jira baabuurka qofkii ugu horeeyay ee la muxuu ahay la fiiriyay oo la tusiyo la fadhiistayaan
xarunta nabad sugidda xarumaha nabad sugidda xarun ka mid ah liiga yeeri kaamarada aan fiirinay baabuurka la daba galay baabuurka shakhsi hay'adda ka tirsan ayaa yeeshay cidda soo bixisay ee soo samaysana waa cid hay'adda ka tirsan haddii wax hay'adda lagu tumayo ay jiraan sawirkaasba sooma saarteen oo anigana ilama wadaagteen waxaan rabaa marka yaan la istuhmin intaanan la istuhmin ka hor aan sheergarayno wararka aan isla wadaagno waxaan ka codsanayaa baraha bulshada wararka ku socdo oo la siyaasadaynayo gabadha baadadeedii annagana ma caawinaysa taas waxaana caawinayso information aad ila soo wadaagto oo anigana aan xaqiiqadii iyo dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee goobay inaan la wadaago 3 hay'adood ayaa loo xil saaray inay arrintaas baaraan hay'adda nabad sugidda hay'adda CID iyo hay'adda muxuu ahay laanta socdaalka iyo muxuu ahay dabagalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intaba 3daas hay'adood oo security-ga ku shaqo leh waa loo yeero waana loo xil saaray baaritaankaasna wuu socdaa ra'iisul wasaaraha waa ogyahay madaxweynaha waa ogyahay hay'addii ay ka tirsaneed waa ay ogtahay marka waxaan codsanayaa in wararka baaritaankan aan laga hor dhicin oo aan bulshada la kicinin bulshada haddii la kiciyo wax un ka soo siyaadaa ma leh haddii xataa aad siyaasad ugu dan leedahay bulshada kicinteeda oo baraha bulshada aad ku soo qorayso walaalow adna waxaad ka faa'iiday male annagana waa ina xanuujinay markaan wararka qaar aan dhageysano waa xanuunsanaynaa walaalow baadiyaa naga maqan baadida sida ugu habboon noola baadi goob muwaadin baadida naga maqan waa baadi aad noo xanuujinaysa sida ugu habboon ee fududayn karta noola baadi goob haddii aad muxuu ahaay aad warkaa isaga naga siyaasadaysid oo aad muxuu ahaay aad dhinac qaldan noola aadid waxay un lagu sii adkaynaysaa qaabkan wax u baarayni iyo qaabkii oo muxuu ahaay gabadhaayin raq iyo nolol aan ku heli lahayn ayay naga sii adkaynaysaa waxaan kaa codsanayaa telefoonkayga inaad qaadatiin oo aad muxuu ahaay wixii muxuu ahaay aad heli kartiin oo muxuu ahaay nacaawin kara inaad soo dirti aad noogu soo sheegtiin waxaa weeye telefoonkii 32 waa 08 32 37 80 telefoonkaasaan wataa waxaad yeelaysa adeerkeedaan nahay intaad baraha bulshada warka siinin ka hor ii soo sheeg idheh waxaana xogtaanaan hayaa idheh waxaa suurtagal ah inaan kaa shaafiyo waxaa suurtagal ah inaan ku duulamaad tago laakiin baraha bulshada war la geliyey oo kumiti laga sii bixiyey ma aha war annagana caawinaayo haddaad ikraanka la xabanayso oo ikraan aad ka xanuunsanayso oo ahalkeeda aad la xanuunsanayso walaalle intaadan baraha bulshada warka gelin ka hor nala wadaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo ahalka iyo qaraabada oo anigaba aan ka mid ahay gabadha ka maqan tahay inaan isxakamayno oo aan wararka qaar ku tirakuteenka lagu soo qorayo meelaha lagu soo qoro baraha bulshada ayna sii hamin kicinin xanuunaan la haayo inaan iska adkaano baadideenna si asluubaysan oo ilbaaxnimo leh aan u raadsanno oo muxuu ahaay qaabka aan ku heli karno oo muxuu ahaay annagoona aan meel ka dhac samaynin annagoo aanan gaf samaynin annagoo aanan muxuu ahaay xanuunka naga tan badanin inaan baadideenna aan goobanno waa ogahay xanuunka waana wada hayaa hooyada macaan hooyo qaali waa hayaa xanuunka waan ogahay laakiin haddana aan baadida marka aan raadsanayno si ilbaxnimo leh oo wanaagsan oo muxuu ahaay taabanaynin xanuujinaynin bulsho kicinaynin muxuu ahaay dhibaato kale aan geysanaynin inaan ku raadsano gabadheeni weli aniga ma quusan ilhaan gabadha la yiraahdo ikraam waxaan aaminsanahay inay nooshahay ilaahay idinkii hadday dhimatine hadda dhiigga dadeed ma qarsoomaayo qof muslimna dhiiggiisa ma qarsoomaayo hadday nooshahayne waxaan aaminsanahay in la heli doono cid maanta aan leeyahay aan ku eedaynaho ciddaasa aan tuhma aan leeyahay ma jiraan hay-addii ka tirsaneed aaday iila gurmadeen waa ila shaqeeyo hooyaan xalidan tan ah ayaa lii wacay oo informationno qaar anay aan ogeyn liila wadaagay marka walaalayaal informationada ikraam tahliil faarax ha ahaadaana kuwa cilmi ku dhisan kuwa raadinteeda sidii lagu heli lahay lagu raadinayo waxaan arkaya dad meel ka dhacyo samaynayo
waxaan arkay dad muxuu ahay siyaasadaynayo oo isla dhinaca xun la aadayo war walaal aniga xanuun baa i haaya waxaa iga maqan dad nool waxaa iga maqan gabar aqoon-yahanada waxaa iga maqan gabdhaha xanuunka ay leeyihiin waa ka daran yihiin kan ragga waa ka daran yihiin intaad marka aad sheer garaynin oo aadan i murjinin ila wadaag idhe waxaanaan tuhmayaa waxaanaan maqle xataa hanti waa ku bixinaynaa xataa qofkii aan rabin in la sheego ma sheegayno qofkii raba in la sheegin ma sheegayno walaalow nala soo wadaag si hoose noola soo wadaag laakiin baraha bulshada waxyaabaha aad ku qoraysa xanuunkaas nagu sii siyaadinayaa mana aha wax na caawinayo waayo wax aan reference u heli karno oo faagti ah maaha wax faagti ah oo gabadhayda ii fududaynaysa inaan helo ama aan waayo muxuu ahaay ama nolol ama geeri aan ku helo ii fududaynaya igu caawi haddaad igu caawinaynin qala walle haddana iga aamus oo baraha bulshada waxbaa ku soo qorin dadkaa iga kacinin walaalnimada iyo ahalnimada iyo soomaalinimada iyo muslimnimadu sidaasay ku jirtaa annaga xanuun baa nahaaya waxaa naga maqan gabar waxaa naga maqan muxuu ahay qof aqoon-yahanada waxaa naga maqan qof mas-uul ahaa ayaa naga maqan ilaahayga subxaanahu watacaala ahaa inay noo soo baryaan masaajidadana loogu soo duceeyo culummada ay u soo duceyso ilaahay noola soo baryo war nadiif ah oo aan ku farxi karnana allah agtiisaas noo yeelaa oo aan ka sugaynaa aadaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu